السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صاحبي maanta waxaan jecel jawaalaha la ciyaari doonaa saaxiibkii Khadar kaasi oo hadii uu ku guuleysto aan siin doono lacag gaadhaysa $50. haddaba challenge-kan oo ka kooban steps kala duwan, stepta koowaad iyo stepta labaad iyo stepta saddexaad. haddaba saaxiibayaal challenge-kani waa challenge hide and seek ama kala dhoondhoomasho. saaxiibayaal hadda waad aragtaan Khadar waa kan ila jooga, waxaan u dhiibi doonaa boorsadaasi waxaa ku jirta boorsiyada la furo doona hadhow talaad arki doontaan. marka saaxiibayaal challenge-ga marka uu bilowdo anigu halkan waan ka tagi doonaa, halka labaad baan tagi doonaa, halka labaadna warqadda ay halkan hadhow talo furi doonaan baa ku qoran boorsada Khadar qabo alaabtaadi baa kugu jirta hadhow ka howlgalaysaa. marka waa ka saaxiibayaal la socda alla maanta meeshanku wada weyna wax badan buu ka soo shaqeeyay malaynay inuu anigu meesha igu dagaya. way saaxiibayaal waad aragtaan sheet 1 iyo sheet 2 waa labadii warqadood. marka ta koowaad waxa ku qoran xujada markuu sameeyo, ta labaadna waxa ku qoran barta aan joogo. ka xujada markuu sameeyo ayuu ta labaad furi doonaa, waxa uu ku qoran halkan jawaalkaas aanu insha Allah iman doona. halkan xujo kale ka soo horeysa marka labada warqadood gacantan ka saaray waan dhaari ma furi karo. waka asxaabi watan xujadu inoo dhiibay, xujadii koowaad way warqadii koowaad bal waan akhrin doonaa insha Allah waan eegaynaa waxa ka soo baxa. aye wuxuu yiri fur bogaska koowaad ee ku jira boorsada aad sayto kadib xarfaha ku jira soo saar 14 kan magac adoo xarfaha isu geynaya Ali Muuse Najax Xuseen Yaasiin Yuusuf Marwan Nimco Ayaan Hoodo Raxma magacadoon aad ku fara badan oo meesha ku soo ururiyay. waxaan u maleynayaa aan magacyada xafadeeda ii soo ururiyay loo eegi doonaa boorsada uu sheegay inuu furaynaa. asxaabi watan warqadii bogaskiira uu sheegay waa ka bogas wankii. haddaba saaxiibayaal ugu dambeyn daal iyo rafaad badan kadib ninkii Khadar waa ku guuleystay inuu soo saaro magacyada marka laga reebo hal magac oo laba xaraf isweydaariyay. waxaana ugu dambeyntii soo qaaday warqadda ay ku qornayd barta aan joogo. isla markii uu furay waxa uu tagay waxaad igu timaadaa dugsiga Rees. waxaad igu timaadaa lagu kuuray albaabka hore ee dugsiga Jaqaale Ismaan Rees. halkan aan joogna waxa la yiraahdaa xaafadaha fakinka runtii aad bay u kala fog tahay marka la isku eego masaafada u dhaxaysa dugsiga Jaqaale Ismaan Rees iyo xaafadan hadda joogno. haddaba saaxiibayaal intii ku gura jireen xujada samaynteeda ayaa aniguna waxa aan sii tagay isla dugsiga Rees. waxaana warqadda u sii geliyay albaabka angalkiisa halkaasi oo isla markiiba ka sii tagay oo aan u sii gudbay meel kale. kadib waxaan soo galnay suulkii Jaqaale Ismaan Aboonjifo maanta way naga waalaya kuwa xujadii weeyaan waxaad ka soo saartaa numbarka 8 tirada badan ee ku jira bogaska labaad. bogaskii hadda waa haynaa. haddaba saaxiibayaal sidii hore lamida dadaal iyo joogti badan kadib waxaa ka soo saaray lambarkii aan u diray oo ahaa lambar 8. aniguna sidoo kale waan ka sii tagay meesha waxaana sii tagay meesha ay hadhow ku arki doonaan warqadda tilmaanta ah. waxaad igu timaadaa Damal Hotel albaabkiisa ka dambeeya fooqa dahabshiil. ninka odaygaay wareeg ugu sameeyay waxaanu ka nimaadnay fakinkii waxaanu nimay iskuulka Jaqaale Ismaan Damal Hotel budoonay inuu yimaado. haddaba saaxiibayaal hadda waxaa la soo gaadhay steptii ugu dambeysay ee haddii uu ka soo gudbo ugu guuleysan lahaa lacagta gaadhaysa $50. aniguna sidii hore si lamida waan ka sii tegay kadib markaa warqadda u dhigay albaabka hore ee Damal Hotel. haddaba saaxiibayaal markay soo gaadheen Damal Hotel si wanaag warqaddan kuma qorna wax xujo ah balse kaliya waxaan ku soo qoray halka aan joogo oo ah Aadan Xaashi Hotel. halka markuu igu yimaado si automatically waxaan si doonaa lacagtiisii ku guuleystay balse waa inuu ka faa'iideysto waqtiga oo ah 2 saacadood. way saaxiibayaal ugu dambeyn ninkii Khadar wuxuu ku guuleystay inuu halkan igu yimaado saacad iyo 30 bir kadib. hadleedahay saaxiib tareenka ka waran $50 waa ku diyaar gacanta laga saaraya. wallahi barnaamij aad u adag buu ahaa. markii hore Aboonjifo TV buu ahaa imika Buwandaaliye weeyaan. waa Buwandaaliyaha wadi aniga ninka odaygaaba wadna daalistay. waxaan u maleynayaa malaad taa kama soo fikirin baan u maleynayaa markaad macnaha waxaan soo diyaarinaysay. waa ka soo fikiray waxa ugu talagalay in maanta iska duwareegnin daalo si fiican caawin sax. marka asxaabtana waxaa leeyahay asxaabta dee ku soo dhawaada subscribe-ta like-ta share-ta asxaabta ninkan magaciisa inoo saara. ninkan magaciisa ma meesha ku qoran maxaan ku rahdaa channel-ka idinka iskale magacayga ma qoran idinka iskale. ninkan magaciisa ma meesha ku qoran channel-ka idinka iskale asxaabta.
ninka iska laa waayo ugu dambeyntii saaxiibayaal waxaan idin codsanaya inaad Facebook haddii aad naga daawanayso aad follow tiraado like naad muuqaalka inoo saarto haddii aad tahay teamka YouTube kana subscribe taadee dhac inoogu siiso barnaamijka xigeentan ku kulmi doono. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.